السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وعن أو ونكسن وصدحي تبينك بش رجب سنة كن أفر بقول أفرتني لح كنا آدن صدحي تبينك بش جانوري سنة لو كن يشان لباتنك في نمو عن ونكسن وهبي نمو أي سنين بحيسو ثلاثة أي سوقليسو waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka aan caawa idinku hayaya waxaa kamid ah galinkii dambe ee maanta ayaa magaalada Nairobi waxaa ka dhoofay madaxweynaha dalkan Kenya Dr. William Ruto oo ku sii jeeda dalka istaga Imaaraadka Carabta oo ka qayb galayo shir caalami ah. waxaa lagu dhaariyay maanta magaalada Nairobi gudoomiyaha guddiga anshaxa iyo dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkan Kenya oo loo dhaariyay Cabdi Axmed Maxamed. wararka Soomaaliya daawadayaal waxaa kamid ah idin haynaa ciidamada Puntland ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay dagaal xoogan ay ku qaadeen kooxda Daesh jab xoogan halkaasi ay ka soo gaarsiiyeen sida saraakiisha Puntland ay sheegeen. xeebaha gobolka bari ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in markab laga leeyahay wadanka Shiinaha oo afduub ahaan loogu haystay bilihii ugu dambeeyay in ugu dambeyn maanta la sii daayay. marinka Gaza wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in askar ka tirsan Israa'iil halkaas lagu dilay iyo dowladda Mareykanka oo doonaysa in inta uusan madaxweyne Joe Biden xilka uusan banayn xabajoojin rasmi laga gaaro dagaalka ka taagan marinka Gaza. maxaabiista Israa'iil iyo maxaabiista Falastiina la isweydaarsado. wadanka Lebanon ayaa waxaa loo doortay madaxii maxkamadda cadaaladda adduunka inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lebanon. qodobadaasi kuwa kale ayaa daawadayaal waxay yihiin warka aan caawa idin hayo ee u diyaar garoow warkaasi oo faahfaahsan xaysiis kadib. kusoo dhawaada darajo Heights oo ah dabaqa ugu dheer xaafadda Nyali ee magaalada Mombasa ee dalkan Kenya. darajo Heights halku dhiginu waa kusoo tilaabso adduun casri ah oo qurxoon. darajo Heights oo dhismaheedu haatan u bilowday ayaa waxay koobnaan doontaa 3 dabaq oo mataana dhererkiisuna uu gaarayo 20 biyano ahna dabaqii ugu dheeraa oo laga hirgeliyo xaafadda Nyali ee magaalada Mombasa, gaar ahaan halka ay Soomaalidu u taqaan Muqdisho Yarey. soo laabasho wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha dalkani Kenya Dr. William Samoei Ruto ayaa waxa uu ka boqolay galinkii dambe ee Isniinta magaalada Nairobi isagoo ku sii jeeda magaalada Abu Dhabi ee dalka istaga Imaaraadka Carabta halkaas uu ka qayb galayo shir caalami ah oo ah shirka toddobaadka joogteynta ama Sustainability Week oo ka dhacaya magaalada Abu Dhabi ee dalkaas istaga Imaaraadka Carabta. shirkan oo soo qaban qaabiyay madaxweynaha dalkaasi Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa waxa uu yahay shir sanadla isla markaana laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa xilligan ay magaaladaasi Dubai ay martigelinayso. waxaana shirkan uu yahay shir lagu gorfeynayo arrimo badan oo kamid ah horumarka bini'aadantinimada sida tiknoolajiyadda, energy-ga ama tamarta iyo waliba sidoo kale hal abuurka, iyadoo ay ka qayb galayaan madax ka tirsan qaaradan Afrika oo ka mid yahay sidoo kale madaxweynaha wadankaasi Rwanda Paul Kagame oo isna halkaasi lagu soo dhaweeyay. shirkan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galaya hogaamiyayaal daafaha dunida ka kala imaanaya iyo waliba sidoo kale dhalinyaro fara badan oo iyagoo markaasi ka badan 3500 oo dhalinyaro ah oo dunida daafaheeda ka kala imaanaya. magaalada Nairobi ayaa wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in kulan ay saxaafadda ay doonayeen inay maanta ay kula hadlaan jabhadda ka dagaalanta dalkaasi Sudan ee RSF ee uu hogaamiyo Maxamed Hamdan Daglo gabi ahaanba shirkaasi la laalay oo saxaafadda ay kula hadlaayeen koox ka tirsan kooxda mucaaradka ku ah dowladda dalkaasi Sudan. shirkan ayaa waxaa la filayay inuu warbaahinta uu kula hadlo ninka lagu magacaabo Maxamed Ciisadin Safi oo isagu ah la taliyaha kooxda RSF ee dalkaasi Sudan ka dagaalanta, iyadoona aan la cadeyn sababta shirkaasi saxaafadda lagula hadlayay loo baajiyay. laakiinse waxay ku soo beegmaysaa maalmo kadib markii ay dowladda Mareykanka ay ku eedeysay RSF kooxda ka dagaalanta dalkaasi Sudan
in ay ku kacday xadgudub dhinaca bini-aadantinimada. isla wararka Nairobi ayaan ugu jirnay waxaa maanta si rasmi ah loo dhaariyay madaxa waaxda anshaxa iyo dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkan Kenya ee dhawaan la doortay oo loo dhaariyay Cabdi Axmed Maxamed oo isagu markaasi noqonaya gudoomiyaha guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkan Kenya. xafladda dhaarinta ayaa waxaa ka soo qayb gashay madaxa cadaaladda ee dalkan Kenya Martha Koome iyaduna Axmed Maxamed Cabdi oo Cabdi Maxamed oo halkaasi ka hadlayay uu sheegay in shaqooyin fara badan ay hor yeelaan isla markaana ka shaqeyn doono sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa. madaxa cadaaladda ee dalkan Kenya Martha Koome ayaa waxa ay sheegtay in xafiiska waaxda anshaxa iyo dagaalanka musuqmaasuqa uu markaasi qayb weyn ka qaadan doono sidii markaasi loola dagaalami lahaa falalka musuqmaasuqa iyo waliba sidoo kale ka hortagidda waxyaabaha markaasi dhibaatada ku ah horumarka dalka. xafiiska guddigan ayaa banaanaa 15 bishan January ee 2025 kadib markii uu baneeyay xilkaasi Talib Mubarak oo horey u ahaa gudoomiyaha guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkan Kenya muddo 6 sano. iminkana wararka Soomaaliya. wararka inaga soo gaaraya gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi dagaal aad u culus uu maanta uu ku dhaxmaray ciidamada Puntland iyo waliba sidoo kale kooxda Daesh oo ku dhumaaleysanaysa qaybo ka tirsan buuraha gobolka Bari. dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa inuu ahaa dagaal aad u qaraar isla markaana cirka iyo dhulka isugu jiray iyadoo kooxda Daesh laga wareegay 4 saldhig ay lahaayeen. ciidamada oo dhowr goobood ka soo galay goobaha ay ku dhumaaleysanayeen kooxda Daesh ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi ay ka saareen. deegaanka Calmiskaat ee Buurleyda ay ku dhumaaleysanayeen kooxdan ayaa waxaa wararku ay sheegayaan sida ay warbaahinta ay u soo gudbiyeen ciidamada Puntland in khasaaro xoogan uu ka soo gaaray kooxda Daesh iyadoo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan barta Telegramka lagu arkay muuqaalo markaasi muujinaya meydka iyo waliba sidoo kale jabka soo gaaray kooxda Daesh sida markaasi ay u soo gudbiyeen saraakiisha ammaanka ee Puntland. weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeysay ay dagaalo aad u qaraar halkaasi ay ku dhaxmarayeen kooxda Daesh iyo waliba sidoo kale ciidamada Puntland iyadoona dagaalka haatan halkaasi ka dhacay uu noqonayo kii ugu qaraaraa oo in dhawaal halkaasi ka dhaca. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isaguna waxa uu ka mid noqday hogaamiyaasha Soomaalida ee sida weyn u bogaadiyay ciidamada Puntland dagaalka ay kula jiraan kooxda Daesh ee ku dhumaaleysanaysa buuraha gobolka Bari. markab kuwa kalluumeysiga oo laga leeyahay wadanka Shiinaha oo afduub loogu haystay xeebaha Puntland gaar ahaan deegaanka Xaafun ayaa ugu dambeyn maanta xorriyadii la siiyay shaqaalihii markabkaasi saarnaa iyo markabkaasiba. markabkan laga leeyahay wadankaasi Shiinaha oo ay saarnaayeen 18 shaqaale ayaa waxaa laga soo afduubtay xeebaha Soomaaliya ee badweynta Hindiya iyadoo markabkan lagu soo waramayo in shaqaalaha saarnaa iyo markabka la soo afduubtay bishii November ee sanadkii tagay 2024 iyadoona dowladda Shiinuhu ay dadaal xoogan ay u gashay sidii markabkaasi loo soo furdaamin lahaa dadka afduubka ugu jiro ee markaasi burcadbadeeda waxaana ay burcadbadeedu ay dalbanayeen lacag gaaraysa 10 milyan oo doolarka Mareykanka. lama oga in markabkan lagu sii daayay lacag madax furasho iyo in kale. wararka ka imaanaya marinka Gaza ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamada Israa'iil maanta looga dilay 5 askari oo ka mid ah ciidamada Israa'iil kadib markii guri ay ku dhumaaleysanayeen lagu soo dumiyay. kooxda iska caabinta Falastiiniyiinta ee Hamas ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay laba jibaareen dagaalka ay kula jiraan ciidamada Israa'iil ee marinka Gaza gudaha ugu jira gaar ahaan dhinaca waqooyi oo dagaalada ugu badan ay ka dhacayaan halkaas oo Israa'iiliyiintu rumaysan yihiin in lagu haysto dadka afduubka loo haysto Israa'iiliyiinta. dhinaca kale waxaa dowladda Mareykanku ay ku dadaalaysaa
in xal laga gaaro colaadda ka taagan marinka Gaza oo haatan u muuqata in ay sii daba dheeraanayso. dowladda Mareykanka ayaa waxa wararku ay sheegayaan in inta uusan xilka la wareegin Donald Trump madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Mareykanka isla markaana xilka u banaanin madaxweynaha haatan xilka sidii ee Joe Biden in la doonayo in xabajoojin rasmi laga gaaro marinka Gaza isla markaana maxaabiista Israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira Hamas la soo furdaamiyo iyadoo lagu bedelinayo maxaabiis kale oo Falastiiniyiin oo gacanta Israa'iil ku jira. waxaana arintan maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay magaalada Doha ee dalkaasi Qatar iyadoo sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka Israa'iil iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanku ay magaalada Doha ee dalkaasi Qatar ay isdoomarayeen si markaasi xal rasmi loo gaaro colaadda ka taagan marinka Gaza. ugu dambeyn wararka ka imaanaya wadanka Lebanon ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha cusub ee dalkaasi Lebanon asbuucan ka soo gudbin doortay Joseph Aoun oo soo magacaabay Nawaf Salam oo ahaa madaxa maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lebanon. Nawaf Salam oo la horgeeyay golaha baarlamaanka ee dalkaasi Lebanon isaga iyo rag la tartamayay ayaa waxa uu helay codadkii ugu badnaa iyadoo uu 85 cod oo ka helay baarlamaanka dalkaasi Lebanon oo ka kooban 128 xubnood. dalka Lebanon ayaa waxa haatan sida muuqanaysa kooxda Hezbollah oo galaangal xoogan oo dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale ciidan ku lahayd ay haatan u muuqataa in ay markaasi si baaba'ayso tan iyo markii la dilay Xasan Nasrallah hogaamiyihii kooxdaasi isla markaana ay kuraas badan oo baarlamaanka ay lumiyeen iyo sidoo kale ciidamadii xooganeed ay ku lahaayeen dhinaca koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimadda dalkaasi Lebanon. daawadeena warkeena aad kala socoteen وطن ميديا وانا انتان وركن مد لمد كرم دونا وحنا دي كتغيا سياسه مدغلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.